kulankan ay maanta yeesheen maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha amniga gobolka Hiiraan ayaa waxaa looga hadlay xaaladda amni ee magaalada Beledweyne. kulankan ayaa waxaa shir gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jati Cismaan. saraakiisha ciidanka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa awaamir ku soo rogay dadka isbaarooyinka dhigta iyo dadka hogga sida sharci darrada ku dhex qaata gudaha magaalada Beledweyne. ugu horeyntii abaduulka qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka General Salah Yaqub Salah iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Colonel Isaaq Ali Cabdulle ayaa digniin u diray dadka hubka sharci darrada ku dhex sita gudaha magaalada Beledweyne. dhammaan ciidamada qalabka sida waxay gobolka Hiiraan ka falgala waxay amar buuxo ku qabaan iyadoo la fulinayo awaamirta taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxay amar ku qabaan cid kasta oo isbaara dhigato inay talaabo ka qaadaan, ama qabiil ha ku dhigato ama shakhsi ha ku dhigato. qodob waa qodobkaas. qodobka kale, cid hub ku sidan karta oo sharci darro ah magaalada gudaheeda iyo banaankeeda haba yaraatee ma jirto oo aan sharciyeysnayn oo aan meel lagu ogeyn. waxa kale waxay ciidamada qalabka sida ka soo haro waxaa hub loo ogol yahay oo kali ah macaawisley ciidamada ka barbar dagaalanta oo goobahooda lagu cidii kale hub iyadoo sida talaarka waa laga wareegaa hubka. waxaan leenahay dadka muqaadaraad ka ganacsada ama isticmaala ha ka foojignaadaan, ha ka leexdaan ayagana leenahay. haddii ka leexan waayaanna gacan bir ayaan ku qaban doonaa. waan ognahay waxyaabaha keenaya isbaarada iyo amni darrada waxa ugu weyn oo dhalinyarada ay doonayaan waxa weeye inay muqaadaraad u isticmaalaan. dadka muqaadaraad ka ganacsada amaba isticmaala waa in ay ka leexdaan oo u hoggaansamaan sharciga. intaa kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan dhanka maaliyadda iyo siyaasadda ayaa yiri gadaalkan dambe waxaa soo baxday ganacsiga in caqabado badan lagu keeno xafiis gaadiidley iyo xafiis ganacsato la furo oon ognahay waxyaalaha ay ka shaqeeyaan iyo waxyaalaha caqabada ay ku yihiin. hal xafiis oo nala shaqeeya ma laha. xafiisaha ka furan gobolka Hiiraan cid ku keenaysana gacmahan ka qaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waan la soconaa cid walba wuxuu ka shaqeeyo. ganacsatada waxaan ugu digaa gacmaha kale oo ku dhex jiro inay iska ilaaliyaan ayagoo ka fikiraya ganacsigooda iyo danaha oo ganacsigooda ay kala yihiin. ugu dambeyntii gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jati Cismaan oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha amniga aysan aqbalaynin in dadka magaalada Beledweyne ay dacwo ay u aadaan deegaanada ay ka maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. qofkay ku cadaato inuu aado shabaab oo shabaabaa noo yeeray inta yiraahdo aada ama cadaalad u doonto inta kuma soo noqon doono. qofkan ku helnana waxaan la tiigsan doonaa sharciga. hadda saaka ma caddahay cid saaka geed ku xiran miyaa jirta? shabaab odayaasha dhaqanka ee wada koofiyaha gashan ee shabaab u sii socda saacad walba waxaan leenahay cadaalad Ilaahay baa haya mid idinku filan halkaan ay taala maxkamad halkaan ay ka furan tahay. maahan markii ugu horeysay maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha amniga ay awaamir ay ka soo saaraan dadka hubka sharci darrada ku dhex sita gudaha magaalada Beledweyne. waxaana la ogeyn sida uu ku dhaqan gali karo hadalkan maanta ka soo yeeray maamulka. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, Waddan Radio and TV, Beledweyne.